ciidanka amniga Puntland ee BSF ayaa si 20 bishan howlgal lagu xaqiijinayo amniga ka fuliyay degmada Ofen iyo deegaanada hoostaga sida Kobdhaxaad Barako Dawcali iyo deegaanka Maqor ee Buraha Calmiskaab howlgalkaas oo ciidanka amniga Puntland BSF ay ka fuliyeen deegaanadaasi ayaa ujeedkiisu ahaa xaqiijinta amniga iyo ka hortagga falalka iyo qataraha kooxaha cadawga ah ee Al-Shabaab iyo Daesh ku dhuumaleysta qaybo kamid ah Buraha Calmiskaab ee gobolka Bari saraakiisha iyo ciidanka amniga Puntland BSF intii howlgalkaasi ay ku guda jireen waxa kulamo isxogoreysi la qaateen mas'uuliyiinta maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmada Ofen intaas kadib madaxda iyo ciidanka BSF oo ka duulaya baahi dhinaca caafimaadka oo degmada ka jirta ayaa waxa isbitaalka degmada Ofen ay ku wareejiyeen daawooyin loogu talagalay in lagu tacaalo xanuunada laga qaado qaniimada maska oo haatan bukaano badan ay u jiifaan isbitaalka degmadaasi Abdiqaadir Cabdi Axmed oo kamid ah saraakiisha sare ee ciidanka amniga Puntland BSF ayaa ka warbixiyay wareejinta daawadan iyo howlgaladii ciidamada BSF ay ka fuliyeen deegaanadaasi anagu marka hore waxaan u soconay kormeer guud oo ah in aan cadowga meelaha u degan yahay aan soo kormeer ilaa iyo intaan qarka soo marinay tasjiic Kobdhaxaad ilaa iyo Ofen intaba waa wareegsaneen waa dhici ka dhacayna aragtaan oo idinkeeda ka fogda dhulka wax lagu sheegayo Dawcali iyo Maqor oogadeeda iyo halkan hal saac barba loo saaraa laba saac qofka lugta ka fogda waa arki ka dhacan oo idinka ruuxana waxa ku nimay waxa aad aragtaan inaad soo sheegtaan sababtoo ah laga soo gaari karaa banaanada sanaday soo gaaraan oo lagu arko gaariga ka soo baxaa bootaaso iyo aan qariyo meel kale tagin ba laga soo gaari karaa sababtoo ah inay qar ka dagaalamaan ma ahan banaan oo soo dhigi karaan taas waa mid koowaad oo aan ku soconay tan labaad bahalahaas hadda la sheegayo aad u tiro batana wax yar oo dawaa baa idin wadnay oo dawada anta snake la yiraahdo waxaan kale oo hadda aad ugu dadeen in dad badan oo qabaa'ila oo fara badan oo qaybtooda kala deganaysan tahay inay magaalada soo degeen tuulada agaarkeeda dooxooyinka waxaan ma barwaaqada agaarka inay tuulada ugu badan baba hadda geedahan ku soo marnay dooxooyinka qaybtood dadkuna aad buu joogay muhiimadda koowaad oo aan idinku marada idinku celinayo waxa weeye xogta cadowga inaad soo gudbisaan hadii lahaydmo haddana waxaan idinku wareejinaynaa dawadii oo aanu idiin siinay waxaan muhiimadda ka soo qaadanay waxa kale waa idin yaaleen oo meesha ka muuqdaan wax dadka jirooyinka qabta xataa anoo kan warhayno iska soo qaadi karo laakiin tan waa dawo muhiim ah oo loo baahan yahay oo nin walba uu garan karo mas'uuliyiinta maamulka degmada bahda caafimaadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Ofen ayaa iyagana dhankooda madaxda iyo ciidanka amniga Puntland BSF ugu macdaliyay shaqooyinka qaran ee dalka ay dadka ay u hayaan iyo ka jawaabida baahida had iyo jeer ugu imaanaysa bulshada aad iyo aad baad u mahadsantihiin booqashadiina maantana ku weydiin ma aha wax badan baad soo booqateen wax badan baad hadda markii noogu dhameysay wax noo keenteen qalab dhinaca waxbarashada naga anfacaya laba jeer horena waxaad noo keenteen daawada baasha hoose loo isticmaalo booqashadiina anagu waan ku faraxsannahay ka gudoomiye ahaan tan kaleeto deegaanka xaggeeda wax dhibaato ah oo anaga nahayo ama aan ognahay oo dhibi ma jirto buuraha hadda la sheegayona anagu wax bilaayo hadda nagaga yimi ma hayno anaga horta bahalihii way nagu soo bateen deegaankana waa deegaan balaaran nawaaxiga ku dhow degmada Ofen oo dhanna cusbitaalkaas oo cusbitaal oo adeegyo caafimaad oo kaamil ma ay helaan waayo waa ay ku yar yihiin kii dhul dhow laga keenay kii dhul shisheeye laga keenay waxa la keenayaa waa cusbitaalka dawaduna aad bay noogu yartahay awalna dadkii keenay idinka ay alxamdulillah rabbil caalamiin maanta aad baan idinku mahad celinaynaa odayaal idinka margaara baan idin salaameynaa waan idin soo dhaweynaynaa dadka iyo dalkuba hadii waad malaynaysan in waxa la tawarino kuma kala sheela dadkuna waa dadkiina dalkuna waa dalkiina iyo ilaah baa ummadda ku nooleeyay dalku nabad weeye nabadu adaa ku noole iyadu kuma noola bi anaga nooga timi ilaahay cid waa ku liibaanay alxamdulillah rabbil caalamiin waxa weeye ahmiyad weyn waa la idinku hayaa taasi waa qodob ku xiga wuxuu yahay anagu waxana degmooyinka gobolka Bari degmada
boosaaso u xigta markii bari loo leexdo way sugnahay deegaanada wax weyn bay qoladanu ka qabatay alxamdulillah ama dhinac nabadeed baa la iska caawino ama dhinac waxbarasho la iska caawino ama dhinac waxa weyn arrimaha bulshada si dooraad wax uga qabateen annagu alxamdulillah rabbil caalamiin markaan ani jaanis fiican bay tahay ciidanka iyo taan u joogo daawadii keeno in badan keen jiraan maanta la kulmay aniga ay farxad gaar ah isla marhaantaana wada shaqayntu way fiican tahay isla socodku waa fiican yahay waxa way daawooyinka la keenay magaalada iyo deegaanka u dhowdhowba aad bay ugu baahan tahay wala tuulooyin wala baadiye isbitaalka wax dad jiifana ama waad aragteen ama waad arki doontaan isboortiska oo ka mid ah waxyaabaha sida aadka ay u daneeyaan dhalinyarada xiliyadan oo kale oo goobaha waxbarashada ay fasax yihiin ay aad ugu mashquulaan ayaa ciidanka amniga Puntland BSF agab isboorti waxa ay ku wareejiyeen dhalinyarada ku dhaqan degmada Ofen ee gobolka Bari si kastaba haatee ciidanka BSF ayaa had iyo jeer ah kuwa u taagan sugidda amniga iyo ilaalinta nabadgelyada deegaanada Puntland